eedu waxay ba ka horeeya wargeyska waxa ku taagnaa tiraba waxa ku taagnaa 5 eedood oo maxkamadda gobolka u yaalay 5 eedood oo eedo gudaha si laha waliba oo sab si laha eedo koobaad eedo labaad si laha marka eedahan doonaya dadka inaan horta marka hore aan fahamsiyo si ay u fahmaan waxa lagu soo eedeeyay wuxuu wargeysku qoray ayaan fahamsiinay marka koobaad raana lagu ayaa ku dhacay wargeyskiina waa la xiriir gudaha la sanaa laakiin bulshada Soomaaliland ayaan u saxaynaa hadaladii beenta ahaa ee uu shalay warbaahinta mariyo gudoomiye dalmar waxa la yaab leh wuxuu soo taxashan dacwadood ayuu keenay annagana waxana lagu qaadano lagu xukumay hal dacwad ala doo fiirsada dacwadaha uu keenay dacwado uu dhageystay oo uu ka garnaqay may ahayn waxa kale oo soo qaaday dacwad ah inuu yidhi qasri madaxtooyada lagama hadale waxay qoreen in guriyo gaara dad gaar ay dhisanayeen madaxweyne guriyo gaar ah dhisanay waxa weeyaan ku xoojinayo xukunkii cadaalad darrada uu keenay ayuu qiiqisku qaran ku sameeyay dibadna dacwadihii eedihii hore ee maxkamadda CID yaaleen heer dacwadeed ba gaadhin ayuu intuu soo urursaday buu shiriimay markaas warbaahinta ka sheegay shalay eeda koobaad cadadkiisii 1328 cadadka lambarkiisu sidaa yahay wuxuu ku daabacay wargeysku oo laga soo cawday oo booliska looga soo cawdo xeerlaan soo gudbisay ilan garsoorku dadka ma soo qabsadaan ee borosijaga loo soo maray in gudidii abaaruhu ay cuneen amba ay lunsadeen booyadihii loo iibiyay taakulaynta dadka abaaraysan lagu gaarsiinay biyaha booyadii Chinese ka sina taag ahaa ee cadcadaay TV-dan ka wada daawana dadku wada garanayaan ee berigi abaaraha loo iibiyay 2017 waxa cunay baan gudida abaaraha cunay meel Allah tusaale wuxuu soo qaatay tii booyadaha uu yiri Xasan Cabdisalaam iyo wasiirka diintii awqaafta Sheekh Khaliil ay yiraahdeen way cuneen waxa la yaab leh tootale anagu meel aan ku nidhi Xasan Cabdisalaam iyo wasiirku waxay cuneen booyado ma jirto waxaana ka marxaatiyayo jooga arinta aad wax ka weydiin doontaan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamed Cabdi Shaah cadadkii 1379 waxay sheegeen TV-ga ka maqlay madaxtooyada ka hadalay madaxtooyada kama hadal waxaan Muuse dhisanay guriyo gaar u leeyahay oo malaayiin dollar ay ku baxayaan xilli ay bulshadu la tacaalayso caafimaad la'aan waxbarasho la'aan iyo biyo la'aan may keenin guriyaha gaarka ah ee madaxweynuhu dhisanay malaayiin ku baxay may keenin eedeysanaha koowadna qaabkaasi eedda koowaad u dhignay eedda labaad waxay eeddaasi ku saabsanayd sida ka muuqatay in qoraalka madaxtooyada cusub ee laga dhisayo galbeedka magaalada Hargeysa way eedda labaad waxa si wada jiray leedinku eedeynaya faldambiyeedka dacaayad ka soo horjeeda qaranka ee ku xusan qodobka 215 xeerka ciqaabta guud sababtoo ah taariikhda markay ahayd 12 bishii isla taariikhdan isla nuqulka waxa wargeyska foor ku faafiseen cadadka 1390 dacaayad ka dhana haybada iyo sumcadda qaranka oo aad ku kicinayseen bulshada kuna duminayseen hay'adaha dawladda ee sharciga idinkoo yidhi horumarkii bulshadu danyartu god madow uu ku dhacay waxbarashadii dawliga ahayd meeshii ugu liidatay taala adeegii caafimaadkuna uu liita taasoo aad uga lahaydeen inaad iska hor keentaan bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladeeda bulshada Soomaaliland iyo dawladeeda inaad iska hor keenteen cadadkii 907 waxay sheegeen in waliba waa eedaha hore u yaalay ee maxkamadda horteeda u yaalay weeyay ayaan taxaya maanta cadadkaas 907 waxay ku sheegeen in shirkii golaha wasiirada marwadii hore madaxweyne Siiraanyo ay ka dhax toostay shirka golaha wasiirada inay ka dhax toostay cadadka ku soo saareen oo ay soo fadhiistay ka soo dhax toostay taana ma cadin maxkamadda horteeda kama cadin wuxuu soo qaaday oo kale marwadii hore qaranka oo uu yiri shirkii golaha wasiirada ka dhax toostay wuxuu ku dhawaaqina halka xukunay halka ku yaalay ee uu dhageystay bahayd dacwad kale oo uu dhageystay ma jirin waxa jirtay dacwad hore oo ahayd waqtigii DB World wadanka ay timid oo aan qoraal ka sameynay waana tii uu sheegay uu lahaa waxay wax ka sheegeen qoyskii hore madaxweynaha hore Axmed Siiraanyo Amin Waris waxaana ahayd dacwadaasi dacwad hore oo uu dhageystay rabadaanteedii hore waa 2 sano ka hor taasoo imka soo qaado markaas uu yiri waliba xukuumadda taa kuma dhawaaqin marka gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wargeyska foore waxay is arkeen oo kaliya labada jeer taa hore DB World iyo tii shalay reerista madaxtooyada iyo arrimaha caafimaadka ku saabsan cadadkii 810 waxay sheegeen in commissionka ay ka luntay liiskii codbixiyaasha ka lumay wali cadayntii waa laga sugaya inta qof lumay cid uu soo dacwootay iyaga dadka yiri waxba naga lumay commissionka ka soo dacwoodo taana waranku liiska ku lumay
codbixiyaashii somaliland liiskooda ku lumay caddeeyaba iyagana taana la kari lahay taana xawaa faalawareed iyo waxaan soo ka soo maqalnay waxay sheegeen oo kale waxay kaloo sheegeen xogtaas inay luntay codbixiyaashu eedda kale maxkamadda u taallay waxay ahayd in cabdirashiid iyo ilka case waa guddoomiyaha wargeyska foore iyo ilka case oo ah tifaftiraha labaduba aanay ku diiwaan gashanayn wargeyska foore ee uu ku diiwaan gashay in la mukhtaar maxamed xasan cadadkii 1311 waxay sheegeen in wasaaradda maaliyaddu qaybisay miisaaniyad aan ahayn tii baarlamaanku ansixiyeen labadii miisaaniyadood tii baarlamaanka halkan baa la wada keenay uu ansixiyey haddaba tii wasaaraddu maaliyaddu ay qaybisay beenta ahayd ee foojariga ahayd may keenin cadadkii 1322 waxay ku sheegeen inuu wasiirka maaliyaddu eriyey nin hore ugu xidhay musuqmaasuq ninka la eriyey may keenin musuqmaasuqa hore loogu xidhay loogu xukumay amba ugu cadaadina maxkamadda horteeda may keenin taana waxay ka jabaan faalawareed waa nusqaan weyn runtii nin ummaddo dhan garsoorkeedii u fadhiya oo la doonaya cadaalad looga fadhiyey ayaa wuxuu ka been sheegay wixii ku dhawaaqay buu ka been sheegay ka sareysan maxkamadda gobolka Hargeysa inay baaritaan sharci ay ku samayso xukunkii ku dhacay wargeyska foore oo runtii qaladaad fara badan oo aan loo aaba yeelin uu ku jiro dacwada aan la dhageysan oo aan loo aaba yeelin uu ku jiro dacwada aan la dhageysan oo aan loo aaba yeelin uu ku jiro labada eedood waxa dheeraa oo iyaguna doodafeedka ka mid ahaa oo arrimaha la yaab kale ku jiray in sida uu sheegi doono tusi doono halka imika calaamadaas wad aragtaan maxaa ku qoran madaxweyne biixi doodafeedka baarihii CID-da iyo xeerlaalihiiba doodafeedka waxay ku dareen in wargeyskoogu ku xusan yahay madaxweyne biixi oo magaca madaxweyne oo dhammaystiran aanay qorin waana doodafeedkii ay maxkamaddu qoratay ee ay ka go'aan qaadatay eedii baa la gudagalay dacwadda dhegeysigeeda la gudagalay labadaa eedood waa kuwa aanu iska difaacanay ee qareenkayguna goobjoog ka naga difaacayay waxaa goobjoog ka ahaa isaguna jamaal cali xuseen siyaasi jamaal cali xuseen oo runtii qof iyo siyaasiin kale oo qof runtii qof muxtarima oo dhex jooga meesha waxa uu ka maqnaa oo kaliya ta xukunka waan ka xumaay in gudoomiyaha gobolku marwada uu eedeeyo la fuulo ninkaasi wixii uu joogay buu furay wixii la nagu eedeeyay labada qodob ahaan mid waxa weeyaan dhismaha madaxtooyada galbeedka Hargeysa midna waxa weeyaan arrimaha caafimaadka waxbarashada liita ayaa waxa la dhageystay difaac waxa la dhageystay aadi difaaciina raaciyay gudoomiyaha waxaanu markaa u aragnaa in isla markaa halka ay marayso xukunkaas eedaasi oo dacwadu halka ay marayso in fargelin la soo geliyay dig wuxuu yiri raaciyay difaac waxaan ku maalin kale nooga dhig may imika raacinaysan difaac imika raacsada difaaci waan raacsanay looyirkiina uu ku qasbay sidii buu dibadna difaaci ku raacnay meel ku digdigaanu garamayno waxa noo soo baxay laakiin wax shaki weyn uga waray inuu gudoomiyaha maxkamadda sare ee maxkamadda gobolka Hargeysa uu darjiiro oo arrimaha loo baahan inuu meesha keeno kana baxay xayndaabkii dacwadeeda iyo eedo ay ku saabsanayd totally wixii uu shalay ka hadlayo warbaahinta ka akhrinay wax eedaa ku saabsan ma jirin halkaan tafatiraha faahfaahin doona qodobada iyo nuquladii uu meesha keenay dibeetana wuxuu soo qaaday mala awaal si uu sumcadda nooga xumeeyo bulshadana u marin habaabiyo ayuu yiri wadaadadii iyo gudidii iyo abaaraha ay wax ka sheegeen dibeetana wuxuu soo qaaday mala awaal si uu sumcadda nooga xumeeyo bulshadana u marin habaabiyo ayuu yiri wadaadadii iyo gudidii iyo abaaraha ay wax ka sheegeen arrintaasi arrin jirta ma ahayn waxaana ahayd wargeysku xiribood gareey booyadihii ay lahaayeen gudida abaaruhu ayaa meel ku xiriisnaa gaara dibeetana waqti dawladdu ay dabagal ku sameynaysaa hantida dawladda ay dad goobjoog yiraahdeen booyadahan ay wargeyska war ku soo siiyeen markii aanu qoraal ka sameynay anagu gudida abaaraha booyadahoogi baanu laakiin xasan cabdisalaan iyo wasiirka toona qoraal kamaanu sameynin cid baa cuntayna maanu oran ee waxaanu nidhi sabab aan la garanayay halka ugu jiraan markii dambe maalintii ku xigtay ay xasan cabdisalaan la soo hadlay wargeyska iyo wasiirku iyo sheekh Khaliil dibeetana waxa kale la soo hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland waxa la niyo arrintaasi annaga haynay hadhow lagu wareejinaya marka wax cunisa ma yana arrintaasi cid qaadatay ma jirto annaguna ma oran cid baa qaadatay iyaguna ma oran arrintaasi dibeetana maalintii labaad baan war ka qornay sidii ay gudida u tidhi ayaan u sheegnay dibeetana stage dacwadeed ba arrintaasi Soomay gaadhin marka dhamaantood wada fahmaysaan marna waa eed marna waa dacwad qaadis iyo ka qirnaqis soo saas ma eed bay haytaasi dibadaananu markii ugu horeysayba ayaan ku sheegnay warkoogii labaad baan gudida u qornay wax dalmar soo gaadhay oo dacwad la dhageystay oo aan fadhi ka nidho waxay ahayd faalwareed baan qornay oo aanu dhageysanayba ma ahaynba been buu sheegay yani waxa la yaab leh qofka bani aadamka sujuud ba ka muuqata gudoomiyaha maxkamadda sujuud salaad subax soo tukadii buu waxa qofka bani aadamkii
xukunku wuxuu doona haba ku dhawaaqo laakiin ummadda beenta marka labaad u sheegayo ee uu isleeyahay isku sax oo bulshada ugu sheegin wargeyska foora khaldanaa arrintaas nasiib dara arrintan aan ka gamayn wax weey xukunkii waxa naga daran cadaalad darrada ay nagu riday iyo wargeyskii dhamay shaqeynay meerada ganacsiga ahaa ee furnaa ee uu sifaha sharci darrada ku xayray waxa naga darnaa beenta umar labaad ummadda u sheegay taasina waa sidaas wixii su'aalaad laba su'aalaad saddex su'aalaad weydiisan